guddida sare ee Sarda ayaa maanta howlo shaqo ay ku soo ogaanayaan halka ay marayso wadada 60 kiiloomitir ee dawladdu lacagteeda bixisay isla markaasina ay qandaraas ku qaadatay hay'adda Sarda ayaa waxay maraysaa heer gabagabo ah halka qayb ugu rajo weyn yahay in maalin kadib la dhigo laamida waxaana ilaa ay hadda shaqadu ay si habsami ah uga socotaa wadada 3 kiiloomitir hay'adda horumarinta wadooyinka Sarda waxay ugu baaqeen cid kasta oo daawanaysa halka ay wadadu marayso codsanayaan inay wadadaasi ka qayb qaataan waxa isaguna halkaasi ka hadlay Abubakar Xuseen Miicaad Shiina Dheere magaalada maanta waxaa isugu nimidnay inaan magaalada marlabaad waxayda u bildaamino dawladda bixisay Soomaaliland 2 kiiloomitir ee halkan magaalada ku daran 4 kiiloomitir caadi kontraatiga hore u bixiyay oo ka saddex ka dhigay waxaad u jeedaan oydihiinu maxay ahayd arkayaan in ay 2 kiiloomitir maanta ay rugeydii roolta garaacday oo daamur saaridda u dhibantay kii saddexaadna ay greenity fridges marka wax khalka dadka jecel oo dhan ayaan u sheegaynaa inay ka soo qayb qaataan ee contribution-ka isdabajooga u soo bixiyay ama wax ku soo dirsanay had iyo jeer dib u yar fariisteen hore u soo fariistaanoo waxa dabaaru waytaan isku kaashano waxaan leenahay qolooyinkii dibadaha joogay iyo kuwa dalka joogaba qaanaankiinii waa loo baahan yahay lagamana dharagsana waan sugaynaa waan soo eegaynaa reer Soomaaliland waxaan leenahay waxaad noo dhiibtaan oo waxbaanu ku qabanaynaa gacanta laaba haddii si la isu kaashan waayo dawladdu way fariisan annaguna waanu fariisan markaas waa hadan caafi TV-ga qaranka magaalada Boorama